Kooxda kubadda cagta MCC ayaa waxa ay diyaargarow adag ugu jirtaa kulanka adag oo ay Isniinta la qaadan doonaan kooxda kubadda cagta Horseed. Ciyaartaasi waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan horyaalka Soomaaliya Premier League, maadaama kulankaasi lagu kala bixi doono horyaalka Soomaaliya. Kooxda MCC waxay rajeynayaan xilli ciyaareedkii labaad oo xiriir inay ku guuleystaan horyaalka Soomaaliya. Kooxda MCC waxa ay sameysay tababar adag Saakay, waxaana tababarkaasi bixinayay hogaamiyaha kooxdaasi Maxamed Mistri, waxaana ay ugu diyaargaroobayaan kulanka adag oo ay Isniinta la dheeli doonaan kooxda kubadda cagta ee Horseed. Haddaba waxaa Goal FM la hadlay Banu iyo weliba kabtanka kooxdaasi, Kabtan Ciise, waxaana ay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan kulankan adag ay la qaadan doonaan kooxda kubadda cagta Horseed iyo sanadan waxyaabaha ay ka rajeynayaan horyaalka Soomaaliya. Bismillah, ku dhawanahay saakeen waa dareemi kartaa diyaar garow halkan aan ku sameeynaa oo isku diyaarinayna kulanka soo socda insha Allah. run ahaantiina kulanku waa kulan noo muhiimsan oo meesha ugu dambaysa aan ku teegsan lahayn. Waxaan rajeynayaa insha Allah inuu Ilaahay na caawiyo oo ciyaar qurux badan aan soo bandhigna rajeynayaa insha Allah. Faisal waa dhaawac saa ogtihiin kulanka ugu dambeeyo dhaawacmay oo asoo dhaawac hor u sii qabay oo kulanka daraan dhaawac soo gaaray. Alxamdulillah saaxiibkeen waxaan u rajeynaynaa caafimaad taam aan u rajeynaynaa waana وما تعلنا مدام أو أسيق أو عياريان MCC أو كتير سنة هاي أو وقت بدن أو نلا سوقاتي عدنا إن شاء الله وحرجينا أنا أسيد ارتسام وعيار الجيم كان ريال كوا دريم كرتا وماشي قدام بس وتاعين حساسية ديسة قامس كريال كانوا حولي عدونا إن شاء الله معلن تسنين تا أنا نسيف عنا أسكو ديارنا معلن أهاني عيرتو يعني ما ملهان بو وحرجينا إن شاء الله إن ماشي قدام بس آتيك سنة أو نقول كسوحنا رجينا إن شاء الله. sikastaba ha ahaatee kulankan xiisaha badan ayaa waxa uu imaanayaa xilli labada kooxood ee isku dhibco noqdeen kadib markii la ciyaaray 18 kulan koox walba horyaalka Soomaaliya. Maxamed Daawud Barre, Goal FM, Muqdisho.